هل نيك هالكن اللي فريا وكما عبد الرحمن أحمد حقيقة كل شيء قول كتب لي رأي برا واي إمك هالكن شوكته هرقيسة واي محاد كش قيسان بعد شقة وسارد والباكين تدخل في يوم وعند جمهورية الصومال واي محا كان أنت محيتي كان أنت شغلك وما ولد عروض واي ما ولد عروض أنتين لك بدو ديمك waxaan wada mudaafa bilowda aad baad u daayartaan malaynaya imse tilmaatay 13 maxaa kugu dhaliyay hargeysa timaado wallahi dawladdu waxay ku dhaliyay waxyaabo fara badan waa koo ay ka koo tahay horta gobolka Togdheer aan joogay kama shaqeeyaan TV studio kama shaqeeyaan hargeysa aad uga shaqeeyaan way agaasimayaashii TV-yada hargeysa joogaan duruuftaas ay u dhalisay inaan hargeysa imaado sideebeed wasaaradda ugu soo shaqo tagtay horta wasaaradda wallahi dee waxa horta wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa ii fududeeyay inaan wasaaradda warfaafinta imaado isagana aad iyo aad bartan uga amaanaya mar walna waxaan leenahay guulayso joog dalkaaga iyo dadkaagana u halgan baa leedahay diinta waa adiga iyo Maxamed Kaahin sidee isku hesheen والله هو تدو waxay fududeeyay marka uu horeysay istaabka dibadda ay fududeeyay markii ku xigtayna xogeyntiisa nimco maxamed ay fududeysay iyadoo sideebaad nimco ku soo heshay wasaaradda wasaaradda arrimaha gudaha oo sidee ahayd markaa tilmaam la iga soo tilmaamay madaxtooyada markii hore madaxtooyada u shaqo tagtay markii hore madaxtooyada ku horeeyay laakiin way suurtagal weyday Maxamed Kaahin bay iga suurtagal marka ma iyaga ku tilmaamay wili xagga tag ha iyaga ii tilmaamay nacam way markii lagu gartay inaad reer burcad tahay ha markii la gartay inaad reer burcad maxaad kala kulantay wasiir Maxamed Kaahin wax fiican baa kala kulantay way uu yaabay markii ku u tagtay ha markii hore soo yaabay way wili mu aragday qof intaydan oo kala leego iri shaqaysiyo oo arkay inta lindal yaraayo iri shaqaysi waa ku sababtaas aad ka yaabisay marka uu kula qaatay wasaaradda aad khusayso markaa ku gudbiyay wasaaradda khusaysan gudbiyo wasaaradda warfaafinta marka uu ka wasiiraha Maxamed Muuse Diiriye in kala kabiyaha صح marka barnaamijka ugu xisaab badan ee siidaysa maxaa kamid ah waan ku tilmaamayaa horta waxay aad u xiiseeyeen carruurtu shondaship waxa kale aad u xiiseeyeen Tom and Jerry-ka iyo waxa kale oo xiiseeyeen Big Panda inta u xiiseeyeen wanka maxaad kula talinaysaa shidooyinka iyo sheekada maxaad kula talinaysaa ciyaalkii lodkaaga ahaa gobolkaad ka soo jeeday gobolkaasi dee maanta hadduu yaro inta leeguga yimiba iyagana damidhaadee iyagana da aad iyo aad horta u hambalyeynaya gobolkaygii dhalinyaradayda asxaabta ahayd cid wal oo bartan iga garanaysa aad iyo aad buu hambalyeynaya maxaad hiigsanaysaa da'daadu aad bay yartay waa 13 jir waa carruur baatay marka imaka carruurta Yurub ku nool oo kale da'daada ah waa la ilaaliyaa sax adiga wax ilaalaa ma lagu saaraayo ma ka baqataa dabada inaad u baxdo kale iyo in lagu qaato kale iyo in miyana da'daadu aad u yareen oo aanu carruur ahayn horta middan kuu sheegaya horta marka shaqaaqa jirtaa ma dagaal jiro nacam gurigiina waad ku xaroonaysaa marka lagaaga sheekeeyo waxbaa wax qaato iyo hargeyso dhanba waxaa ka sheekeynaysa taana waad baqaysaa maanta haddaan nabadgelyadii haysto ammaankaygina aan haysto wax iga maqan ma jirto dabaddaa sheegaysaa iyo burcaan lagu tegaya okay marka maxaad hiigsanaysaa imarka halkaa imaka barnaamijka carruurta maxaad ka sii hiigsanaysaa inaad noqoto waxaan doonayaa inaan horta wasaaraddan iminka joogo inaan agaasimayaal ka soo mara agaasimo waxeeyad iyo aan sidaa hadhow talooyinka gudbaa aan agaasimo guud wasiir madaxweyne sidaa ku noqdo markaa waxaad hiigsanaysaa inaad madaxweynaha Soomaaliland noqoto madaxweynaha Soomaaliland insha Allah haddii Ilaahay gaarsiiyo wadun baa dee naga horeeya insha Allah marka maxaad imaka faraysaa dhalinyarada guud ahaan reer Soomaaliland gobolada dalkoo dhan degan horta maanta Soomaaliland waxa bartaa dhigay waa qabyaalad iyo balwad horta balwadda dee waa haddii maanta dee jaadka yar soo galaya dila waayo maanta la walba reer hawel buu sheeganaya ma garatay horta jaadkuna isagu balaayo noo soo kordhiyay faa'iidooyin inuu soo kordhiyay Etoobiyana dee imika haddii bari u dhawayto wasiirka maaliyadda Dr. Saad Al Shire uu xisaabinayay
وحوري أنت هاسو أكون لعب أي توبي نجمة أو دولار واي السياسة نورتو ده دقالها هنا جوبهن دقالها هنا جوبها هو الدولة رسوك بعيو ده إمك لبي تدوي لباتن كرسده مستيد لباتن كرسده واكو إمك صدم تيد ميلها جلية ما قرأتي أنا واحد لا يهون ويقتلا تلكي نايم وذا قنتني أوكي هذا ما سنت